calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayda qaaliga ah, ardayda sharafta leh fasalka lixaad, aad baan idin salaamayaa. Waa macalinkiinii xasan siyaad cilmi oo idin leh Ramadaan kariim. Maanta waxaanu dhigan doonaa leesonkeena koowaad, cashirkeena koowaad baynu dhigan doonaa, gaar ahaan unidka 20aad, pageka 116 baynu ka bilaabi doonaa. Cashirkeenu waxa uu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano invitation buu ku saabsan yahay, waa casuumaad weeyaan. Ama waxa weeyaan hadii jir qofka markaad doonayso inaad u fidiso qaab casuumaad oo kale ayay noqonaysaa marka. Nasra has visited waxay booqatay her aunt edadeed and cousin iyo ilmadeeradeed bay booqatay in the next village tuulada ku xigta. She is iyadoo returning waxay ku soo noqotay home guriga when she meets markay la kulantay her old friend Ahmed, saaxiibkeedii hore ee Ahmed la oran jiray, on the road wadada ayay kula kulantay. They were very good friends. Waxay ahaayeen saaxiibaad ugu fiican up to grade 4 ilaa fasalkii 4. When Ahmed moved markii uu Ahmed u guuray to a different school markii uu u wareegay iskuul kale. Waaye Nasra, Ahmed bay tiri, how are you? Iska waran, we haven't met for a long time. Muddo aad u dheer maynaan wada kulmin ama ismaynaan arag. Ahmed, yes, my friend, saaxiibkayow, that's true, taas waa dhab. I am fine, waan fiicanahay, but what about you? Adigu laakiin iska waran. Haddaan halkaa ku celiyo, Nasra has visited waxay booqatay her aunt edadeed and cousins iyo ilmadeeradeed in the next village tuulada ku xigta. She is returning waxay ku soo noqotay home guriga when she meets markay la kulantay her old friend Ahmed, saaxiibkeedii hore Ahmed, on the road wadada. They were good friends. Waxay ahaayeen saaxiib aad isugu fiican up to grade 4 ilaa fasalkii 4. When Ahmed markii uu Ahmed moved to a different school markii uu guuray u wareegay iskuul kale. Nasra, Ahmed bay tiri, halkaa calaamadaad ku leedaa exclamatory mark baa la dhahdayo, waa calaamatu cajiib. Deedna zero surprise ama zero la yaab ay ku tiri. Ahmed bay ku tiri, how are you? Iska waran, we haven't met for a long time. Muddo aad u fog maynaan wada kulmin ama muddo dheer ama waqti fog bay isku keen dambeysay. Ahmed, yes, my friend, saaxiibkayow, that's true, taas waa dhab. I am fine, waan fiicanahay, but how about you? Adigu laakiin iska waran. Nasra, I am very well, aad baan u fiicanahay. How about coming to visit me? Ka waran hadday soo booqato at my home gurigayga this weekend. Toddobaadkan hadday soo booqato. Ahmed, I would love it, waan jeclaan lahaa. Thanks, waad mahadsantahay for the invitation, casuumaadda. When shall I come? Xilmaan ku yimaadaa. Nasra, how about ka waran Saturday afternoon, sabtida galabnimada sabtida from 2 o'clock laba saac to 5 o'clock ilaa 5 saac. Ahmed, fine, waa sax, I shall be there, halkaasaan kugu iman doonaa. Bye, waa ku salaamaya, bye. Nasra waxay tiri bye. Halkaa haddaan kusoo noqda, Nasra, I am very well, waa fiicanahay. How about coming to visit me? Ka waran hadday soo booqato at my school at my home this weekend. Toddobaadkan. Ahmed, I would love to, waan jeclaan lahaa. Thanks for the invitation, aad baad ugu mahadsantahay casuumaadaada. When shall I come? Xilmaan ku yimaadaa. Nasra, how about Saturday afternoon? Ka waran subaxnimada, ka waran galabnimada sabtida galabnimadeeda. Ka waran from 2 o'clock laba saac to 5 o'clock ilaa 5 saac. Ahmed, fine, sax, I shall be there, halkaasaan kugu iman doonaa. Bye. Nasra, bye. Haddaba conversation ama wada sheekaysi kale ayaa dhex maray Nasra iyo Zainab. Hello Zainab, where are you going? Xagee tegaysaa? Zainab, I am not going anywhere, meel lama tegayo. I am not going anywhere, meel lama tegayo. I am not going anywhere, meel lama tegayo. I have just came from the river, imiga baan ka imaday. I have washed my clothes,
dharkaygii baan soo meydhayay. Where have you been? Halkeed aaday adigu? Nasra: I have been, waxaan aaday to my auntie's house, gurigii eedaday. Just now, hadda. I met, waxaan la kulmay ubax, inanta ubax la idhaahdo baan la kulmay. You remember her? Iyada ma xasuustaa? You remember her? Iyada ma xasuustaa? We are friends in school. Waxaanu ahayn saaxiibkii iskuulka. Almacna waxaanu saaxiib ku ahayn iskuulka. Zainab: Is she that short? Miyay gaabnayd? Palm girl, may gabadh dhexdhexaada with a round brown face. Weji wareegsan oo weji kooba oo waxay ahayd gabadh brown oo midabkeedu yahay brown face. Nasra: Yes, that's her. Iyaday ahayd. I have invited, waan casuumay her iyada to visit. Waxaan ku casuumay iyada her to visit, inay igu soo booqato aniga, inay soo booqato aniga on Saturday, Sabtida. Would you like to come as well? Would you like, ma jeceshahay, to come as well, inaad noo timaado? Zainab: I am sorry, waan ka xumahay, but laakiin I can't, waan isku dayi doonaa. We are going to visit, waxaan doonaynaa inaan booqano our grandmother, ayeeyday, in town, magaalada, at the weekend, toddobaadkan. Nasra: Okay, perhaps laga yaabaa you would like, waxaad jeclaan lahayd to come another time, inaad noo timaado maalin kale. Zainab: Yes, I would love to, waan jeclaan lahaa. Bye bye. Insha Allah waxaad kasoo shaqeyn doontaa exercise-kan. Answer, ka jawaab this question, su'aalahan. Who did Nasra meet? Nasra inanta la idhaahdo ayay la kulantay. Where was Zainab coming from? Zainab halkay ka timiday? Who did they talk about? Yay wada hadlayeen. Did Nasra invite Zainab to her house? Inanta Nasra la idhaahdo miyay ku casuumtay inanta Zainab la idhaahdo gurigeeda? Did Zainab accept? Inanta Zainab miyay aqbashay casuumaadda ay u fidisay inanta Nasra la idhaahdo? Why couldn't Zainab? Maxay Zainab visit u booqan weyday Nasra on Saturday, Sabtida, ama maalinta Sabtida la badantay, maxay u booqan weyday? Waaye halkaa ogeysiis yar baa kugu qoran akhtarka. Waxa uu ku leeyahay please write your book. Fadlan buuggaaga ku soo qor exercise-ka. Is not allowed, lama ogolaan doono to write a paper, inaad ku soo qorto waraaqad. Insha Allah waad soo gudbin doontaa markaad fahanto. Videogaas markuu soo gaadho waad ku celceshan doontaa, si fiican baad u fahmi doontaa. Ardayey, aad iyo aad baan idin salaamaya. Waa macalinkiin iyo mar kalena le Ramadaan Kariim.